kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo aan markasta kugu soo gudbino wararka ugu waaweyn ee dalka iyo dibaddiisa ka jira. fadlan haddii aad ka cusub tahay barta youtube-ka aan ku leenahay subscribe saar. qodobada ugu waaweyn ee aad maanta warkeena ku daawan doontana waxaa ka mid ah madaafiic maanta lagu garaacay xarunta xalane ee magaalada muqdisho iyo khasaare ka dhashay. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo cambaareeyay weerarkaasi madaafiicda ah ee lagu qaaday xarunta xalane. Ra'iisul Wasaare Khayre oo dhagax dhigay xarunta qaranka gurmadka degdega ah. iyo sidoo kale waxaad daawan doontaan inta aad daawanaysaan warkeena xogta maanta dowladda Soomaaliya iyo Qatar oo diiday go'aan ka dhan ah Turkiga oo ka soo baxay jaamacadda Carabta. Khayre oo mucaaradka iyo muxaafadkaba sheegay in taariikhda ay geli doonaan waxa ay sameynayaan. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan inta aan ku guda jirno warkeena maanta. ismaqal iyo aragti wanaagsan ayaan hawada idinka soo leenahay dhageystayaasheena qiimaha leh. aynu ku bilaabanay madaafiic ayaa maanta lagu garaacay xarunta xalane ee magaalada muqdisho. khasaare ayaana la soo sheegayaa in madaafiicdaasi ay dhaliyeen. warar dheeraad ah oo ka soo baxaya madaafiicda lala dhacay xarunta xalane ayaa waxa ay sheegayaan in khasaare nafeed uu halkaasi madaafiicdii ku dhacday ay geysteen. wararka hordhaca ah ee madaafiicda hoobiyaasha ah ee lagu garaacay halkaasi ayaa sheegaya in halkaasi dhaawacyo ay soo gaareen ciidamo ka tirsan ciidanka AMISOM. xarunta xalane weliba gaar ahaan meelaha ay ku dhaceen hoobiyaasha ayaa waxaa degan ciidamada AMISOM iyo qaramada midoobay. 7 qof ayaa la sheegay oo 3 ka mid ah ay yihiin askarta ciidamada AMISOM, 2 kalena ay ahaayeen shaqaale ka shaqeynayay dhismaha iyo 1 qof oo ka mid ah shaqaalaha beesha caalamka in ay ku dhaawacmeen hoobiyaashaasi maanta lagu garaacay qaybo ka mid ah xarunta xalane ee magaalada muqdisho. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiyaasha xaruntaasi ku soo dhacay ay laga yaabo in khasaare intaasi ka badan ay geysteen oo aan weli la hubinin inta qof ee meeshaasi wax ku waxyeelooday. dhanka kale madaafiicda halkii ay ka soo dhacday ama wixii la soo riday ayaan ilaa iyo hadda la haynin si cadna loo ogeyn halka ay ka soo dhaceen. daawadayaal weli waxaa naga daawanaysaan barta youtube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. dhanka kale gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan ayaa waxa uu cambaareeyay weerarkaasi madaafiicda ah ee maanta lagu qaaday xarunta xalane. war qoraal ah oo ka soo baxay ergeyga qaramada midoobay u jooga Soomaaliya James Iswan ayaa waxaa lagu sheegay in ergeygu uu si toos ah u cambaareynayo weerarkii maanta lagu qaaday xarunta qaramada midoobay iyo ciidamada AMISOM halka ay ka degan yihiin magaalada muqdisho ee caasimadda ah. weerarka madaafiicda ah ayaa la sheegay in uu waqtigii uu soo dhacay ay saacadu ku beegneed 7:15 oo duhurnimo oo maantay ahayd. waxa uuna burburiyay qalab matoor oo halkaasi yaalay. sidoo kale sida la sheegay waxa uu dhaawacyo u geystay shaqaalihii ka shaqeynayay xaruntaasi. waxaan ka walwalsanahay falkan argagixiso ee shaqaalaheena lala beegsaday kuwaasi oo ka shaqeynaya arrimaha bini'aadanimada, horumarinta nabadda iyo arrimaha kale ee horumarka ee Soomaaliya. inta badan shaqaalaheena dhib ma uusan gaarin. saaxiibadeena shaqaalaha ka mid ahaa dhaawac uu gaarana waxaan u rajaynaynaa in ay si dhaqso ah u soo kabsadaan. sidaas waxaa yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay James Iswan. tani wax caqabad ah ma noqon doonto shaqadeena UN-kana waan sii wadi doonaa. dowladda Soomaaliyana waan ka taageeri doonaa sidii ay u gaari lahayd nabad iyo deganaansho iyo horumar guud ahaan wadanka Soomaaliya uu gaaro ayaa lagu yiri war qoraal ah oo soo saaray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan. daawadayaal weli waxaa naga daawanaysaan xogta maanta barta youtube-ka aan ku leenahay. fadlan haddii aad ku cusub tahay youtube-kan subscribe saar si markasta uu kuu soo gaaro wararka ugu waaweyn ee dalka iyo dibaddiisa ka jira. markana Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa dhagax dhigay xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah oo dabooleysa baahiyada degdega ah ee bulshada Soomaaliyeed ee ka hortagga masiibooyinka. Dhismaha xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah ayaa ku timid taladii xukuumadda ay siiyeen muwaadiniin Soomaaliyeed ee ka shaqeynayay gurmadkii loo sameeyay dadkii ku waxyeeloobay dhibaatadii qaraxii 14 Oktoobar ee 2017. ayuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu faray howlwadeennadiisa inay ka shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in xaruntan loo howlgeliyo. ra-iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee keentay fikirka xaruntan lagu dhisayo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhisidda xaruntan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyaduna ka go'an tahay dhageysiga shacabka iyo taladooda in ay qaataan. xaruntan qaranka ee gurmadka degdega ah ee dhismaheeda maanta la dhagax dhigay ayaa ka qayb ah qorshaha dowladdu ay ku dooneyso in ay in dalka dhan laga hirgeliyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah iyo hagaajinta caafimaadka si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan nolol dhameystiran. daawadayaal welina waxaa naga daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe-ta ha ilaaw. dowladda Soomaaliya iyo Qatar ayaa diiday go'aan ka dhan ah Turkiga oo ka soo baxay jaamacadda Carabta. ururka jaamacadda Carabta ayaa kulan degdeg ah oo ay yeesheen duulaan waxa ay uga hadlayeen duulaanka ciidamada Turkigu ay ku qaadeen dalka Syria, gaar ahaan xadka labada wadan ay wadaagaan, waxaana kulankan looga hadlayay weerarkaasi Turkigu u qaaday. wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa kulankan ku yeeshay magaalada Qaahira ee dalka Masar, waxa ayna ka doodayeen duulaanka Turkigu ku qaaday Syria, waxaana kulankaasi lagu cambaareeyay weerarka dowladda Turkigu ay qaaday. gudoomiyaasha wadamada jaamacadda Carabta gudoomiyaha wadamada jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in weerarka ciidamada Turkigu ay kuna qaadeen gudaha wadanka Syria uu yahay mid xadgudub ah uuna yahay mid ay ku faragelinayaan dadka reer Suuriya aysan arintaasi u dulqaadan karin. kulanka jaamacadda Carabta ayaa laga soo saaray bayaan lagu cambaareynayo duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday Suuriya, waxaana loogu baaqay Turkiga in ciidamadeeda ay kala soo baxdo Syria. kulankaasi ka soo baxay jaamacadda Carabta ee lagu cambaariyay dowladda Turkiga ayaa waxaa diiday inay ka qayb noqdaan dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo xiriir dhow la leh dowladda Turkiga. ciidamada Turkiga ayaa gudaha u galay dalka Syria, gaar ahaan xadka ay labada dal wadaagaan, waxa ayna ciidamada dagaal kula jiraan xogaga hubeysan ee Kurdiyiinta ee dowladda Turkigu ay u aragto in ay yihiin kuwo argagixiso halisna ku ah ammaanka wadanka Turkiga. daawadayaal weli waxaa naga daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. markana ra-iisul wasaare Khayre ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka iyo muxaafadkaba taariikhda ay u geli doonto waxa ay iyagu hadda qabanayaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay ka hadlayay munaasabad lagu xusayay maalinta calanka Soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu baaqay ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya, mucaaradka iyo muxaafadka Soomaaliyaba. ra-iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in qof walba oo Soomaali ah, mucaarad ha ahaada ama muxaafad ha ahaadee, looga baahan yahay inay ilaaliyaan hawada, badda iyo dhulka. waxa uuna xusay in taariikhda ay geli doonaan mucaarad iyo muxaafad labadaba. qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo naga mid ah oo meel walba uu joogaba dalka iyo dibaddaba, waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay dalkiisa. haddii uu mucaarad ahaan lahay ama muxaafad ahaan lahay, waa fursad uu u haysto inuu qarankiisa matalo ama qarankeeda matasho. waxaa taariikhda geli doona sida aad u ilaaliso qarannimada, madax-bannaanida, sida aad u ilaaliso hantida qaranka, ugana fogaato musuqmaasuqa, sida aad u ilaaliso midnimada, sida aad u ilaaliso xuduudaha badda, hawada Soomaaliyeed aana u xajino calankeena. sidaasi ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii xogta maanta ee aad naga daawanaysaan. fadlan inta aan ku kulmayno warkan war lamida, sidaas iyo nabadgelyo.